doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyo sidoo kale xisaabta qaranka Soomaaliland ayaa la filayaa in maalinta Arbacada ah guud ahaanba Soomaaliland gobolada iyo degmooyinkaba looga dareero. Doorashooyinkaasi loo ballansan yahay madaxtooyada Soomaaliland ee ah in looga dareero guud ahaanba dalka ayaa haddana waxa soo baxaya saadaalo kala duwan ay ku saadaalinayaan dhammaan dadka siyaasiyiinta ah iyagoona mid walba uu dhinaciisa ku saadaalinayo sida loo kala guuleysanayo iyo tirooyinka lagu kala badin doono. wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abubakar Dubbe kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya kana mid ahaa 2017 dadkii qoray ama aqoon-yahanadii qoray buugga siyaasadeedka xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye ayaa waxa uu ku saadaaliyay in doorashada fooda inagu soo haysa ee Arbacada qabsoomi doonta in murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani iyo xisbigiisa wadani ay ku badin doonaan codad gaaraya 70,000 oo cod halka xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye iyo murashaxa madaxweyne xisbigaasi kulmiye lagaga badin doono codad gaaraya 40,000 oo cod. siyaasiga weyn ee caanka ah Cali Yuusuf Cali Guray ayaa isaguna waxa uu saadaaliyay doorashadani isagoo oo ku saadaaliyay doorashadani sida loo kala guuleysan doono iyo tirada lagu kala guuleysan doono. waxa uu ku saadaaliyay in murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani uu ku soo bixi doono codad gaaraya 140,000 oo cod. Cali Guray ayaa waxa uu sheegay in gobolada lagaga adkaan karo ama lagaga adkaan doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay tahay gobolada Awdal, Togdheer iyo sidoo oo kale Ceerigaabo. waxaanu sidoo kale Cali Guray uu sheegay in ay isku soo dhawaan doonaan codadka Maroodi Jeex, Saaxil iyo sidoo oo kale Caynaba iyo Soolba tirada la isdheeraan karo aanay badnayn balse halka lagu wada tartami karo balse madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagaga adkaan doono gobolada Togdheer, Awdal iyo sidoo oo kale Sanaag, Ceerigaabo. saadaalahan ayaa aad isha loogu hayaa waxaana isha loogu hayaa cidda noqon doonta madaxweyne iyo tirada uu ku guuleysan doono.